wararka ka imaanaya degmada Buuleburte ee gobolka Hiiraan ayaa ku waramaya in halkaas maanta uu ka dhacay bannaanbax looga soo horjeedo maamulka Hirshabelle waxaana bannaanbaxaasi dhigaya dadka deegaanka kuwaas oo ka soo horjeeda gudoomiye loo soo magacaabay halkaasi. khilaafka u dhaxeeya maamulka Hirshabelle odayaasha deegaanka ayaa in muddo ka taagnaa halkaasi waxaana dadka deegaanka Hirshabelle ay ku eedeeyeen in magacaabista xilka qaadista aan lagala tashan kaasoo inta badan uu sameeyo wasiirka arrimaha gudaha Hirshabelle oo lagu magacaabo Caadle. wararkii ugu dambeeyay halkaasi ka imaanaya ayaa sheegaya in bannaanbaxaasi uu bilowday saaka una socday dhowr saacadood waxaana dadweynaha halkaasi ku bannaanbaxaya ay gubeen taayiro waxaana la sheegay in ciidamada Jabuuti ay rasaas ku fureen dadkii bannaanbaxa ku dhigayay halkaasi. wararku waxay tilmaamayaan in rasaasta ay fureen ciidamada Jabuuti uu ku geeriyooday hal ruux oo shacab ah oo dhaawacmay ruux kale. maamulka Hirshabelle ayaa lagu eedeeyay inuu mas'uul ka yahay dhibaatooyinka ka dhacaya halkaasi. Ismaaciil Muumin oo ah dadka deegaanka oo la hadlay idaacadda Simba ayaa sheegay in xaaladda ka jirta Buuleburte ay aad u kacsan tahay isla markaana cabsi laga qabo inuu sii socdo bannaanbaxa ka taagan degmada Buuleburte ee gobolka Hiiraan. saaki ayuu ka bilowday degmada Buuleburte bannaanbaxana wuxuu ku saleysnaa khilaaf moodooyinkii ugu dambeeyay ka jiray degmada Buuleburte dhanka maamulka ah isku haystay soo magacaabid gudoomiye isagoo la soo magacaabay muddo adiga 3 isbuuc ka hor ah iyo golihii deegaanka laga sameeyay degmadii oo markii hore muranka uu ka bilowday marka hadda xogaa isha muddo badan soo socday saaki waxaa ka soo digay degmada Buuleburte gudoomiyihii iyo waqti la socdo kii ayaana keenay saaki bannaanbaxa oo ku saabsanay waxa la yiraahdo isha soo digitaanka nimankaas loogu soo horjeedo saaki magaaladu way kala xiran tahay ganacsigu uu xiran yahay bannaanbaxyo badan jiro wadooyinka ayaa taageero iyo lagu gubayaa iyo isha baalkii wadooyinka la dhigayo la xirayo wax ganacsi iyo wax dhaqaaq iyo wax shaqo oo saaka degmada ka jiro كل وقت سيدي عبد الله شاري وباقي وصل إيماني لكن هذا ولي معطين كرنا وحلا حري ولي هوشي بنانبحي رفشديه آيات صعود. dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha iyo wafdu uu hogaaminayo ayaa maanta ku wajahnaa degmada Buuleburte ee gobolka Hiiraan waxaana la tilmaamayaa inay baaqdeen kadib markii halkaas ay ka dhaceen bannaanbax looga soo horjeedo maamulka Hirshabelle. bannaanbaxa ayaa la sheegay inuu saaka bilowday una socday dhowr saacadood waxaana la tilmaamay in bannaanbaxayaashu ay gaareen goobaha uu ku shaqeeyo maamulka Hirshabelle. waa kan mar kale Ismaaciil oo ah dadka deegaanka باقدين النهضة ورجعت الوسوقة كل سنة بعيري ولي صعدان مساكي كل 8 كيلوات لبي 8 كيلو سواء ما أي بالله شيء إلا حتى أنا وصعدا نشاط محمد أنا سيد بومكا ومجال كلا سوق إيربورت كيو تجمده بحيث يو إيش تجمده حرمت تجمده يو حرمت جبوس تاريخ كثيرا كا إلا يو أنت السوقية أنت بحيث وحلقوية طائر وضيق أوضاع لديجيا dadkii shacabkii aad ay magaalada u soo go'taasiyeen kulay xasaradaas kacsan ay magaalada ka jirto laakiin ku soo dhawaaday hadalka Ismaaciil oo kamid ah dadka deegaanka ayaa ku soo aadaya xilli shacabka ku nool degmada Buuleburte ay aad uga caroodeen tilaabooyin uu qaaday maamulka Hirshabelle waxaana maamulka Hirshabelle uu xilka qaadis ku sameeyay dhowr gudoomiye oo halkaas ka dhisnaa waxaana la sheegay in ciidamada Jabuuti ay ku raad joogaan tiro odayaal ah kuwaas oo ka soo horjeeda maamulka Hirshabelle.